wasiirka beeraha iyo sidoo kale ugaadha ee wadanka Jabuuti Axmed Maxamed Cawaale ayaa dawladda Turkiga ammaan iyo bogaadin u soo jeediyay kadib markii Turkigu uu ka caawiyay Jabuuti dhisida biyo-xireenka Ambooley ee wadanka Jabuuti. Cawaale oo la hadlayay wakaaladda Anadolu ee wadanka Turkiga ayaa sheegay in biyo-xireenkaasi uu Jabuuti ka badbaadiyay musiibo weyn taas oo ay kala kulmi lahayd daadad xooggan. sidoo kale waxa uu sheegay wasiirku in dhismaha biyo-xireenkaasi uu ku yimaaday dadaal ay wada sameeyeen iyo iskaashi labada dal Jabuuti iyo Turkiga. waxa uu sheegay sidoo kale wasiirku in qaab tiknoolajiyad sare lagu dhisay biyo-xireenkaasi oo ay ka qayb qaateen dhismihiisa kambaniyo waaweyn oo wadanka Turkiga laga leeyahay. waxa uu sheegay in biyo-xireenkaasi uu ahmiyad weyn ugu fadhiyo muwaadiniinta wadanka Jabuuti. Turkiga iyo Jabuuti ayaa heshiis kan kala saxiixday 13 May 2014 kaas oo Jabuuti looga caawinayo dhismaha biyo-xireenkan. jooga biyo-xireenkan ayaa waxa uu gaarayaa 71 mitir waxaana lagu dhisay lacag gaaraysa 16 milyan oo euro. biyo-xireenkan ayaa la daah qaaday 3 bishii Juun ee la soo dhaafay. 2 maalin ka horna waxaa dalka Jabuuti booqday gudoomiyaha baarlamaanka wadanka Turkiga Mustafa Shantuub isagoo ka qayb qaadanayay isagoo booqasho ku gaaray biyo-xireenka Ambooley ee Jabuuti.